diyaaradaha dagaalka ayaa xalay duqeymo ardaadiqada kaga dhigay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo watay gaadiid dagaal kuwaas oo qorshahoodu u ahaa inay mar kale weeraraan magaalada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug. Khasaaraha gaaray kooxda iyo halka sida gaarka ah loogu duqeeyay xubnaha shabaabka ee gaadiidka dagaal watay iyo xogta xubnaha sare ee halkaasi kaga geeriyooday ayaan halkan saaka idinku soo gudbinayaa. Sida ay subaxan saaka sheegayaan wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug gaar ahaan koonfurta gobolkaasi deegaanka ama halka lagu magacaabo Marcuudka oo ku dhow deegaanka Faarax Aadan oo qiyaastii 220 kiiloomitir u jira magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa halka lagu bartilmaameedsaday xubnaha shabaabka ee halkaas isku aruursanayay kuwaas oo la sheegay inay wateen gaadiid dagaalamayaal badan ay ahaayeen kuwaas oo qorshahoodu u ahaa inay weeraraan magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug oo Ramadaankan aan gabagabadiisa joogno ay bartamihiisi weerar ku qaadeen kooxda al-shabaab inkastoo ciidanka dadka deegaanka ay jilbaha u dhigteen difaacdeen magaalada Xaradheere. diyaaradaha dagaalka ayaa ka war helay dhaqdhaqaaqa xubnaha shabaabka ee isku aruursanayay deegaan aan sidaas uga fogeyn halka la yiraahdo Faarax Aadan ama goobta sida gaarka loogu magacaabo Marcuudka ayay duqeyntu ka dhacday. ilaa iyo haatan tirada saxda ah lama sheegin ee khasaaraha gaaray shabaabka ha yeeshee xoguhu waxay sheegayaan in halkaasi gebi ahaanba lagu soo afmeeray howlgalkii shabaabku doonayay inay ku weeraraan magaalada Xaradheere isla mar ahaantaasina waxaa fadhiid laga dhigay qorshahoodu weerar ee magaalada Xaradheere. gaadiid dagaal ayaa halkaasi looga gubay sidoo kale dagaalamayaal oo tiradooda ilaa iyo haatan aan la xaqiijin ayaa halkaasi kaga geeriyooday xubnihii shabaabka ee isku diyaariyay inay mar kale weeraraan magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. ciidanka dadka deegaanka iyo kuwa militariga Soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay ku baxaan halka sida gaarka loogu duqeeyo xubnaha shabaabka isla mar ahaantaasina tirakob ay ku sameeyaan ka shabaabka kaga geeriyooday deegaanka Faarax Aadan halka ku dhow ee Marcuudka la yiraahdo oo duqeyntu ay ka dhacday. sidoo kale saacadii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Janaale ay diyaaradaha dagaalka duqeyn culus ugu geysteen saraakiil sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab. waxaa la xaqiijiyay in madaxii amniyaadka iyo kii howlgallada ee kooxda shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose in howlgalkaasi qorsheysan lagu dilay. sidoo kale 4 xubnood kale oo iyaguna xilal sare ka haya gobolka Shabeellada Hoose ayaa howlgalkaas ku geeriyooday. diyaaradaha dagaalka ee Turkida iyo kuwa Mareykanka ee taageera ciidanka militariga Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay laba jibaareen duqeymaha ka dhanka kooxda shabaab ee ay ka fulinayaan koonfurta Soomaaliya. dhawaan waxaa la filayaa in howlgal ka dhan kooxda al-shabaab oo xoogiisu u sareeyo in mar kale ay dib uga bilaabaan gobolada dalka gaar ahaan gobolada bartamaha Soomaaliya ku yaala sida Mudug iyo Galgaduud iyo Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe ee dariska la ah caasimadda Soomaaliya halkaas oo wacd uu ku maray madaxweynaha jamhuuriyadda in shabaab 4 bilood ilaa iyo 6 bilood ee soo aadan laga soo marsiin doono dhinacan isla mar ahaantaasina koonfurta sida ugu dhaqsiyaha badan shabaab looga saari doono waa sida madaxweynuhu sheegay. madaxweyne xasan sheekh ayaa mar kale geed fariis ugu noqon doona dhowsamareeb hogaaminta howlgal ka dhana kooxda al-shabaab oo gobolada Mudug Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe kooxda looga saarayo Hiiraan lagu soo gabagabeynayo wajiga koobaad ee dagaalka ka dhanka kooxdaasi.